Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa booqday masjidka taariikhiga ah ee Sheekh Cabdiqaadir Jilani ee ku yaala magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa la kulmay maamulka iyo culimada masaajidka gacanta ku haya, wuxuuna ugu mahadceliyay soo dhaweyntii diiranayd ee isaga iyo wafdigiisa loo sameeyay, iyada oo lagu soo wareejiyay afarta qaybood ee masaajidka uu ka kooban yahay oo lagu baran jiray afarta madhab ee Xanafiya, Shaaficiya, Maalikiya iyo sidoo kale Xambaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa dul istaagay taariikhda iyo culimada masaajidka Sheekh Cabdiqaadir Jilani oo sanad walba muslimiin badan oo caalamka islaamka ka socda ay soo booqdaan. Waxa uu sheegay in sheekha uu ahaa caalim sunni ah oo diinta islaamka faafiya, una horseeday dad badan in ay raacaan jidka xaqa toosan. Culimada masaajidka Sheekh Jilani ee ku yaala Baghdad ee dalka Ciraaq ayaa ugu mahadceliyay Ra'iisul Wasaaraha booqashadiisa, waxayna ugu duceeyeen shacabka Soomaaliyeed nabad